ciidamada ammaanka South Korea ayaa xabsiga dhigay madaxweynihii dalkaasi kadib markii lagu eedeeyay isku day afgembi iyo musuqmaasuq waxaana waaxda la dagaalanka musuqmaasuqa ay madaxweynaha su'aalo ku weydiinaysa xabsi ku yaala magaalada Seoul madaxweyne Yoon Suk Yeol ayaa noqday hogaamiyihii ugu horeeyay oo la xiro isagoo xafiiska jooga xariga Yoon ayaa yimid kadib markii ismariwaa xoogan uu ka dhashay waaran lagu soo xirayo oo maxkamad ay soo saartay waaxda baariyaasha dhinaca musuqmaasuqa ayaa sheegay in su'aalo dheeraad ah ay u baahnaan doonaan inay madaxweynaha ay weydiiyaan taas oo micnaheedu ay tahay in waaran kale ay soo saari doonaan si loo soo xiro maadaama 48 saac oo sharciga uu dhigayo xabsiga lagu hayay Yoon Suk Yeol wuxuu ahaa isku day afgembi markii uu ku dhawaaqay martial law bishii la soo dhaafay saddexdeeda oo dalkaasi uu geliyay marxalad hubanti la'aan ah jahwareer siyaasadeed iyadoo ugu dambeyntiina xildhibaanada mucaaradka ay keeneen mooshin xilka loogala noqday maxkamadda dastuuriga South Korea ayaa kor u haysa kiiska madaxweynaha dalkaasi waxaana lagu wadaa in bisha soo socota go'aan kama dambaysa ay ka soo saarto haddii xilka si rasmi ah looga xayuubinayo iyo inuu xafiiska sii joogi doono ciidamada ammaanka dalka South Korea ayaa ku guuleystay inay madaxweynaha ay gurigiisa ay kala soo baxaan oo ay xabsiga ay dhigaan muuqaallo baraha bulshada la soo dhigay ayaa muujinaya dabaaldegyo ay sameynayeen dadka shacabka South Korea qaarkood kadib markii la xiray madaxweynihii wadankaasi oo ay ku eedeeyeen afgembi inuu sameyn rabay bishii December ee tagtay markii xaaladda martial law-ga uu dalkaasi uu geliyay sidoo kale madaxweynaha waxaa loo haystaa musuqmaasuq hantida qaranka inuu dana gaar ah uu isticmaalay Yoon Suk Yeol oo markaasi 48 sano jir ah ayaa waxa uu isku dayay inuu xukunka sii daba dheereysto oo wadanka oo dhan xaalad degdeg ah uu geliyo waxa uu ku eedeeyay xildhibaanada mucaaradka inay u janjeeraan dalka Koreada waqooyi oo cadaawad ay kala dhaxayso wadankiisa waxa uu beeniyay eedeymaha loo soo jeediyay ee dhinaca musuqmaasuqa la xiriira baarlamaanka wadankaasi South Korea ayaa codka kalsoonida kala noqday madaxweynaha waxaana ay sheegeen inuu yahay shakhsi khiyaano qaran galay oo isku dayay wadanka inuu afgembiyo maxkamadda dastuuriga marka ay soo saarto go'aanka kama dambaysta ayaa dalkaasi wuxuu aadi doonaa doorasho cusub oo madaxweyne lagu soo dooranayo xariga madaxweynaha South Korea waxaa laga bartay casharo badan oo ku saabsan in aysan jirin cid sharciga ka sareysa dadka oo dhanna ay sharciga ay ka hooseeyaan haddii uu ahaan lahaa qofka ugu sareeya dalka madaxweynaha iyo madaxda kale ee awoodda badan haysata ka waran daawade haddii qaarada Afrika dal ku yaala ama xitaa Soomaaliya maxkamad ku taala ay soo saarto waaran lagu soo qabanayo madaxweynaha markaasi xafiiska jooga awood ma u yeelan karaan ciidamada booliska inay madaxweynaha ay soo xiraan arrimahan waa kuwa markaasi iska cad oo qaarada Afrika maadaama dimuqraadiyad iyo sareynta sharciga si fiican aysan uga shaqeynaynin waxa markaasi dhici karta maxkamadda waaranka soo saartay gudoomiyaheeda inuu madaxweynaha xilka ka qaado ama ciidamada booliskuba taliyahooda xilka laga qaado haddii ay isku dayaan inay madaxweyne ay soo xiraan oo xafiiska jooga laakiin wadamada horumaray dhinaca sharciga ilaalintiisa aadka ugu sareysa waxaa markaasi aan aragnaa in madaxweynihii wadanka South Korea xabsiga la dhigay isagoo awood haysta oo markaasi xafiiska jooga waxaana lagu wadaa in maxkamad uu ka soo hormuuqdo oo wax laga weydiiyo eedeymaha loo soo jeediyay dimuqraadiyadda wadankaasi ayaa ah in shacabku ay awood u leeyihiin banaanbaxyo ayay shacabka dhigeen waxaana ay ka hor yimaadeen madaxweynaha baarlamaanka oo shacabka matalayana waxa uu keenay mooshin kalsoonida loogala noqday madaxweynaha taas oo meesha ka saartay in wadanka qalalaaso uu laga hadla galo iyo hubanti la'aan siyaasadeed South Korea hadda waxa ay ku jirtaa marxalad kala guur ah iyadoo wadanka uu ka baxayo marxaladii xukunkii madaxweynihii hore midka kalena wali aan la gaarin wasiirkii dhaqaalaha ama financiga ama maaliyadda dalkaasi ayaa noqday madaxweyne ku meel gaar ah oo xilka sii hayn doono
ilaa maxkamadda dastuuriga ay ka go'aaminayso mustaqbalka siyaasadeed ee madaxweynaha xilka laga qaaday.